بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم داوديال وشوقي قار هي وحنا إلى نسو سعسين يعني عبد الواحد عبد الله خليف عاو برنامجكو وعلابوينكا مادوينكا أي دمركو اسكو قرحيان وحنا ليه هيا هويني وهريسي أرمهان يعني اسكو ديدي إني سو سارتو مادوين iyadu ay leedahay oo haddana lagu gado yani farmashiyaasha waddankan oo dhan marka ayadaa maadooyinkii noo haysa xabad xabad nooga warrami doonta marka waa wareysi aan la yeelanayno fawsiye cali salaad oo kambaniga ah Udilight Natural Skin Care telefishinada aad baa looga yaqaanaa ee YouTube-ka qof inuu ku cusub ma ahan caawa hadduu ilahay idmo ayadaa noo kala dhigaysa soo dhawow fawsiye waa dhawahay mar kale oo barnaamijkii gaar haye saan hore u sheegnay warbaahin gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka joogaan u gudboon yihiin dawlad guna nama siiso mucaaradkana ma garab siino cid gooniyana uma shaqayno marka fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa laakiin danta guud waa mid goori ayaana gabagabada hadalka iyagu waa aan ku garownay gaar hayo geeyiga ilaali marka online weeye share gareeya la wadaag waalihiina kale fawsiyo waxaad haysaa maadooyin baa tiri dumarku isku qurxiyo raggana waaba laga yaabaa caawa marka arrintu waa abaay weeye bal goorta arrintan bilowday wixii kugu dheliyey bal si kooban noogu soo gudbi bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasha mataqaana gaar haya daawado soo dhawaada horta kambanigan Udilight Natural Skin Care wuxuu bilowday ugu yaraan 5 sano ka hor waxaan nagu dhaliyay in ay noqoto dumarka Soomaalida in ay u bataan wax isku cadeeyo waxyaalaha la isku cadeeyo isticmaalo iyo waxyaalaha maxaa la yiraahdaa madowga ay isticmaalaan ama waxyaalaha cadaanka ay isticmaalaan marka waxaan u fikirnay waxyaalo mataqaana qaas u jirkeena ama maxaa la yiraahdaa waxyaalo dabiici oo ka samaysan waxyaalo badan oo annagana saameyn karo jir ahaanteena ma garanayo inaa og tihiin laakiin skin ahaanta waan ka duwannahay skinada kaleeto waxaan ka duwannahay cadaanka waa ka duwannahay oo skinkooda wax yar waa ka yar adagnahay madowgana waa ka duwannahay wax yar waa ka yar jilicsannahay marka balance ayuu qofku u baahan yahay in uu mataqaanaa productiga uu diyaarinayo uu ku balance gareeyo dadkaasayto maxaa la yiraahdaa skinka nala midkaa haysto marka sidaas darteeda waxaan bilaawnay 5 sano ka hor ilaahay wuxuu nagu guuleeyay inaan dhowr meelood farmashiyo dhigno inaan maxaa la yiraahdaa meelo badan gaarsiino wadamo badan gaarsiino haddana laga helo wadamo fara badan oo kala duwan marka waa kaasa marka maxaa la yiraahdaa noocyo fara badan noocyada ay weydiisay laakiin noocyo fara badan ayay u maxaa la yiraahdaa kala baxaan haddii aan ku bilaabo maxaa la yiraahdaa bodyga jirka mid loo isticmaalo ayaa jiro khaasatan sidaan u egyahay waa kaasa waxaa la yiraahdaa radiance body lotion waa lotion loogu talagalay jirka kan oo kaleeto waxaa loogu talagalay ama rag ha isticmaalaan ama dumar ha isticmaalaan laakiin jirka unbaa loogu talagalay ciyaalka isticmaali karo dadka qabaan maxaa la yiraahdaa jirka aad u qalalan ayaa isticmaali karo marka kambaniga dumar kaliya ma ahan laakiin waxaan ku bilownay waxyaalaha dumarka unbaan ku bilownay laakiin marka hadhowti waan keeni doonaa wax raggana loogu talagalay hadduu ilaahay yiraahdo waa tahay marka balkan ku soo cel hadda u horeeya aad hadda haysid waa cream caadi miya kan waa body lotion waa lotion loogu talagalay jirka markii la qubaysto ama dumar ha ahaadaan ama rag ha ahaadaan maxaa la yiraahdaa lotionkaasayto waxaa lagu gadaa farmashiyaal badan oo ingiriiska niman badan ay naaga badan iyo dad fara badan way naga gataan marka looguma talagelin dumarka kaliya waxaa kaloo jiro vitamin E oil oo ayadana loogu talagalay
qof walba oo especially dadka timaha ay ku dhibaataysan oo timaha ka carareen ama wax yaro bidaar ama something galeen inuu vitaminka uu jirka geliyo sidaas hadhowtina ay timaha ugu dheeraadaan ama ugu bataanba hadda marka dad badan hadda niman baad tiri xataa waa isticmaali karaan hadda waxaanu maqalnaa haddii kaftan ahaan dhex geliyo nimanka soomaalida waxaa lagu ibtileeyey jagajacayl madaxnimo bahal qaadan waa jiraa dumarkii soomaalida waxaa la yidhi iscadayn baa ka carartay marka dayaanadii la sheegi jiray waxaan amay tahay marka maku jirta waxa la sheegi jiray amay maya horta alaabtan waa alaab ingiriiska lagu sameeyey wax diyaana kuma jirto iscadayntana horta waa wax adduunka dhan ka jiro oo hadda maxaa la yidhaahdaa raggii baaba iscadeeye dumarkii iskaba iloowe marka maxaa la yidhaahdaa waa iscadaynta way jirtaa laakiin wax annaga productigeena wax iscadayna kuma jiro lamana keeneen farmashiyaasha ingiriiska haddii ay iscadayn ku jiraan sii wadna kaftankeennan dadka soomaalidu yani horta sideedaba qofku waa sida ilaahay u abuuray bini aadanka wax ka fiican ma leh qofba siba ilaahay ugu talagalay quruxda waa loo siman yahay waxaan arki jiray waddamadan hadda africa oo kale iyo black americanka oo kale timihii baa ilaahay timo adag baa la siiyey oo caadi ilaahay siiyey timahaasay xoogga saaraan inay maaragtay wax ka qabtaan oo ama gubaan ama laakiin dumar soomaaliyeed oo maariin ilaahay midabka ugu fiicnaa adduunka ah yani inay bleach isla dhacaan arrintaa bal horta bal dadka intaan u gelin waqti waa haysanaa alaabtaadii bal arrintaa bal naga shaafi gabdhahan leeyahay bleach baa laismarinaya laiscadaynaya oo khatar gelaysa maxaa ku kalifaya horta aniga waxaasaa ku kalifaya kuma dhihi karin laakiin ugu badnaantii waa quruxun baa laga raadinaya saan is leeyahay in mataqaanaa maybe raggana waxay raadiyaan gabar yar oo yaro dhalaalayso oo yaro cad bay raadiyaan marka sidaas darteed waxaa u malaysaa meesha dadka madowga ama dadka caddaanka ay mariinka ka raadinayaan soomaalidu caddaan bay raadinayaan marka caddaankana dhibaato fara badan ayuu keenayaa skin cancer uu keenaa keliya xanuun uu keenaa waxyaalo fara badan ayuu keenaa marka iscadayntaas laftirkeeda ayaaba cudur soconaysa weli ma aragtay meel looga hadlayo ma ka qayb qaata ama seminaar ama looga hadlayo arrintaas dhibkay leedahay maadaama aad ku dhex jirtay arrimahan meelaha programmada hadda markii in terms of productiga ama waxyaalaha maadooyinka la ogol yahay ingiriiska markii laga hadlaayo ama maadooyinka sanad kasta maadooyin cusubaa la mamnuuca oo ku jiro productyada lagu daro maadooyinkaas marka la hadlaayo aad ba ayaa looga hadlaa skin cancerka aad ayaa looga hadlaa mataqaanaa skinka in qoraxda laga ilaaliyo in la gubo skinka marka qofka markuu iscadaynayana skinkii wuu gubaya waxyaalo fara badan oo jiro waxaa jiro hadda nairobi iyo kaleeto dadka ay yiraahdaan markii gabadha ay skinka iscadayso jirki wuu gubanayaa so qofkii markuu agtaada maro wuxuu usoo uray like qof jirkii uu ka gubtay oo kaleeto marka qoraxda iyadoo iska ilaali lagu yiraahdo haddaad jirki sii gubtidna maxaa la yirahdaa dee cancer waaba qasab inuu yimaado marka waa gart marka wax dhakhaatiira iyo waraaqo la soo saaray iyo wacyigelin intaa ka sarreysa ilaa arrinta hadda ka hadlaysa wax khatara weeye maaha wax sahlan marka waa la isku dayay wax buugya laga qoray iyo wax saas oo kalaayo arrinta aad looga hadlayo oo dhaafisan way jiraan bugaag badanaa laga qodaa especially afrikadaasayta oo nooga sii badan sida nigeria oo kaleeto ghana oo kale waxyaalo badan oo mataqaanaa productyadan ku jiro waa laga mamnuucay hadda kenya laftarkeeda way ku socotaa waxyaalo badanaa laga mamnuucay laakiin weli waxaan isleeyahay waddankeena ma aysan gaarin waa tahay mararka qaarkood waxaa la sheegaa kareem wixii jirka ma wada gaaro maxaa ka dhib badan gabadhii oo jirkeedii kala kaan yahay qayb yani wejigii oo kale oo caddaan camala intii kalena jirkii midabkeedii oo kale marka qof binu aadan oo yani saas asagu isku cadaabaya soo dhibaato maahan wallahi waa dhibaato runtii qofku markuu iscadeeyo aniga uu soo xafiiska ama meesha aan ka shaqeeyo ay igu soo galaan horaan ka gartaa sababtoo ah waxaa garanaysaa meelo fara badan ayaa jirka aan la caddayn karin sida maxaa la yidhaahdaa
meelahan oo kaleeto lama caddayn karo intoo kale lama caddayn karo dhegta oo kale meelo badan ayaa qofka laga caddayn kara marka meelahaas ayaa laga garan karaa qofkan inuu iscaddeeyey marmar dadka qaarkiis waxaa ku dhaco dhigroor oo jirka waxa kasoo baxo xididadii soo baxo gabar waxaad arkaysaa aad u cad oo laakiin xididadeeda banaanka ay yaalaan sidaa u ognahayba iskiinka waxa waaye waa sida basasho kale qolof fara badan oo is saaran waa iskiin fara badan oo is saaran marka qaybta koowaad iyo qaybta labaad iyo qaybta saddexaad qaadid qaybtii afraad waxaa laga yaabaa inay tahay qaybtii mataqaanaa ayba xididada maraayeen marka dumarka soomaalida hadda waxay u bateen gabar waxaa kuusoo gelays wejiga aad u guduudanoo xididadeedii dhammaa ay banaanka yaalaan xididadaasna dhibaato fara badan ayay maxaa la yidhahdaa ay ku haysaa kuleyl fara badana ku imaanayo marka waxyaalo badan oo dhibaatooyina lagala kulmaa iscadaynta sideedaba marka haddii nimankii soomaaliyeedna ay dadkii kaloo ajnabiga ahaa dhulkooda daba ordiyaan oo la xukumayo dumarkeenina saan yeelayaan xaggee loo erkanaya marka ya waa dhibaato weyn oo mustaqbalka loo baahan yahay gabdhaha yaryar oo hadda soo kacay iskuullada in laga wacyigeliyo waxaan isleeyahay shiiqyada laftirkooda inay ku darsoomaan campaignkaas waaye ay wacyigelo fara badan ay ka sameeyaan hadda adiga waxaan kugu soo dhaweynay barnaamijka waxa weeye maadooyinkan aawadid sidaad sheegtay waddankan oo sharci leh weeye ka diiwaan gashan yihiin wax dhiba ma leh marka xabad hadda u gal marka xabad kii hadda kusoo noqo faalle waxaad ka helaysid dadka u sharax marka hadda kan oo kaleeto waxa waaye waa aniga haddaa sheega waa body lotion jirka loogu talagalay maxaa la yiraahdaa in markii la qubaysto la mariyo si mataqaanaa jirkaaga uusan u dildilaacin ama jirka qalalan marka jirka sidiisaba skinka ayaaba kala duwan oo wuxuu leeyahay maxaa la yiraahdaa farqi fara badana u dhexeeyo qaar waxaa la yiraahdaa skin qalalan qaar waxaa la yiraahdaa skin saliid leh qaar kaleeto waxaa la yiraahdaa skin isku darsan marka skinkii baaba kala baxbaxsan marka kan hadda waxaa loogu talagalay skinka qalalana loogu talagalay waxaa jiro kale vitamin E oilka vitaminka anayto waxaa loogu talagalay isagana in dadka ay marsadaan rag iyo dumar way wada isticmaali karaan waxaa loogu talagalay maadada vitamin E-ga inuu jirka dhaqso u galo sidaas waxaa loogu daray saliid canabka laga sameeyey kan waxaa la yirahdaa spot and toneka anayto gabdho badan ayaa aad u isticmaalo haaraha iyo waxyaalaha yaryar oo madow oo wejiga ku yimaado oo da'da ku timaado ayuu ka tirtiraa marka qofku isdhihi karaa maadaama aad tiraahday waxayna waa natural maxaa u keentay wax wejiga maxaa la yirahdaa wax ka tiraayo marka maadadanayto waa maado loogu talagalay lagana sameeyey maxaa la yirahdaa roots ama jiridda geedaha qaar laga sameeyey marka sidaas darteeda ayaa loogu ogolaaday ingiriiska in lagu dari karo kareemada si mataqaanaa waxyaalaha yaryar oo extra madowga jirka soo fuulay ama haddii uu soo fuulay kaa dhexgale kan haaraha noo sug waqti baan haysanaa luushinkii ku soo celi luushinka koowaad luushinka qofku ma wejigu dhaqanayaa gabadhu mise waa iska marsanaysaa anytime mise inaa wejiga dhaqdo weeye marka qofku markuu qubaystuu marsanaya ama wuxuu marsanayaa markii uu maxaa la yiraahdaa jirka uu soo weysaysto oo kaleeto gacmaha lugaha meelaha mataqaanaa oo boodiga la yiraahdaa waa boodiga loogu talagalay hadda in la iska dhaqamo u baahan tahay mise dhib ma leh sida saliidaha caadiga iska dhaqaani ma bahayi waxa haddii la iska dhaqaayo waa wax mataqaanaa dhibaato keenayo wax kasta oon haya aniga waa la marsanaa banaanka lagu aadayaa wax la iska dhaqaayo ma lahan marka waa sida luushinada caadiga ayo kale wax keer la qofku iska body lotion caadi waxa mataqaanaa difference ya uma dhexeeyaan marka danka male inuu shaqo gelayo inuu seexanayo inuu banaanka u baxayo inuu dhiidayo in fact meesha aan south hall ka deganahay qolooyin fara badan oo soo maro mataqaanaa way nagu soo leexdaan waxay usoo leexdaan keliya markay maqaayadaha kasoo baxaan inay kareem naga marsadaan way soo leexdaan kareemadooday marmarsadaan way baxaan marka dad fara badana waqtiga mataqaanaa markaa gacmaha dhaqatid marka waqti badanoo waxaa jiro dumarka hadda inta waxay u wada badan yihiin
gabdho keerka ka shaqeeyo gabdho mataqaanaa guriga jooga oo alaab badan dhaqaayo dadkaas ayuu faa'iido badan u leeyahay marka meeqaa gadaysaa marka kaas UK markii la eego wallahi website-ka ayay ku xiran tahay ilaa adiga 11 12 qaar 10 meelaha qaar 8 marka nasiib jimlada markii lagu soo qaato oo mataqaana tafaariiqda qofba siyuu gadaa qof wax yar faa'iido badan uu ka raadiya qof wax badan uu ka raadiya marka dadku isku mid ma ahan maadaama aniga jimlo aan gadana tafaariiqda beec uma wada goyn kari marka dukaamada say hal price lagu wada siiyaa laakiin hal price ma wada galaa way kala duwan yihiin waa gartay marka calaamadan adaa iskale taas mise dad kale la wadaagta maya kamaniga anaga iskale cid kale yani adinka anaa baa haysataan okay waa la painted waay kii ku soo celi marka kii ahaa kaloo vitaminka aad lahayd vitaminki waa kana kaas marka asagu waa isagu luushana ma ahan sidii saliidii oo kale u muuqda hadda waa saliid waxa ku jiro sida u ogtahayba internationalka waxay leedahay unityo ayaa loo xisaabiyaa vitaminada marka qofka la siinayo hadda vitamin D marka lagu qoraayo dhakhtarka waxaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo 20,000 vitamin D isticmaal weekly hal mar isticmaal laakiin kan waxa waaye waa vitamin E oil waxaa laga yaabaa maalintii 5 drop waxaana ku jiro 5 drop waxa ku jiro 30,000 oo maxaa la yiraahdaa international unit oo daily loogu talagalay so vitaminki uga baahnayd ama cunto ha ahaato ama kareema ha ahaadaan ama shaamba ha ahaadaan vitaminkaasoo dhan oo isugu soo daray oo just saliid ahaan loo soo diyaariyey waaye si markaa marsatid hore jirka uu ugu raaco marka meesha artaa marinaysaa wejigaa iska marinaysa daarti marka mise wejiga aniga marmar wejigaa marsadaa timaha qofki timaha jijaba ayaan aad ugu fiican yahay maxaa la yiraahdaa productyadana markaa fiirisid mar kasta vitamin E ayaa ku jirta lagu leeyahay laakiin vitamin E ga lagu daray waxaa laga yaabaa markay qasayaan wax fara badan inay dhibic yaro vitamina ku daraan adna lagugu yiraahdo vitamina lagu daray marka vitaminkan gooni waxaan ugu soo sameynay in uu boost gareeyo productyadii aad isticmaalaysid ama ha kuu shaqeyn ama isku caddeey ama isku caddeynin ama timaha ha kuugu baxaan ama ay kuugu bixin so wax walba aad isticmaalaysid waa inaad ku dirsatid wax yaro vitamin E ah marka waxaad tiri xataa nimankuna waa marsan karaan baa dhahda marsadaa way iga gataa nimanka igu badan ba waxay iga gatay bidaar baa tiro kul nagu haysay marka bidaarta waxbuu ka taraa baa la yidhi soo maahan bidaarta asaga exactly timaha kuma soo saaraayo laakiin wuxuu ku siinayaa stimulation jirki inuu maxaa la yidhahdaa stimulate gareeyo oo mataqaanaa uu dardar geliyo okay wuxuu tarayaa kuwa hadda timaha dadku ku hareen inaysan ka go'in buu ka caawinaya taasna wuu ka caawinaya kuwii cusuba markaas soo bixi lahaaya pooski iyo wixii ay ka xirmeena waa laga yaabaa inuu maxaa la yidhahdaa usii furu soo maaragtay ka caawiya laakiin sooma bixinaayo timo intaa marsatid haydin fawziya timiye way iisoo bixi waayeen meeqaa la gadaa marka celceliskiisa website ku xiran yahay website-kay ku xiran tahay laakiin ilaa 12 baan waaye 10 baa 12 baa anaga wax qaaliya ma haynaba sideedaba marka farmashiyaasha ma laga helayaa mise waa in aan ka dalbanno waa laga helayaa ka dalban kartaa farmashiyaasha waa ka dalban kartaa dhowr farmashiya yaalaan oo hayo ugu yaraan hadda waxaan geynaa ugu yaraan 10 farmashiya waa geynaa marka waxay ku xiran tahay zoonahaas haddaad degan tahay haddaadan deganayn very simple waaye waadna caawinaysaa waxaad galaysaa maxaa la yidhaha website-ka sida Amazon oo kale gurigaaga irdiisa lagu keenayaa isdhib maba jiro nowadays see ugu bareertay marka waddankan intaa la eg oo intaasoo productyo kala duwan soo saara adigoo qof iska qaxootiya inaad tiraahdo waa la tartamayaa soo geesinimadaas maxay keentay waan la tartamaynaa productyada waana soo saaraynaa sababtoo producti kasta dad gooniya loogu talagalay productigeena sidaan hore ugu bilaabay markaan bilaabay oo kaleeto waxaa loogu talagalay dadka annaga skinkeena leh madowgana aan ahayn cadaankana aan ahayn soomaalida meel u dhexaad waaye
iyo carabta oo kaleeto oo skinkooda wax yarna ka adag yahay example yaraan ku siinaa haddii la keeno qofka cad oo aad u cad qofka cadaanka maldhaxaadka ah qof maxaa la yirahdaa iska yara brown ah qof oo sidaas kalarka loo wada ilaa qofka ugu madow la keeno oo qoraxda la wada fadhiisiyo mataqaanaa qofka ugu cad ayuu kansarka horta marka ugu horeyso maxaa la yirahdaa ee qoraxda usoo gudbinaysa sababtoo ah daafac ma lahan marka annagii oo meel dhaxaada oo kaasna ahayn kan kalena ahayn inaan productiga cadaanka iyo kii madowga aan isticmaalno micno badan ay noo taraysa ma lahan iyo reason aan u isticmaalayna midna marka sidaas darteeda waxaan go'aansanay wax annaga qaasno ee dadkeena meel dhaxaadka badanaa waxaan nala jiro maxaa la yirahdaa Asiankan aan nagula jiro waxaan nagula jiro dadka mix race-ka ciyaalka mix race-ka oo inta ku dhasho madowga iyo cadaanka iska dhaleen Soomaalida dadka maxaa la yiraahdaa skinkooda marka qofka skinkooda aadna u jilicsanayn aadna u adkayna productiga loogu talagalay marka maadaama linekaas yarkaayo dirtada loogu talagalay dirtadaas anaga ku soconaynaa waana laga gataa cadaana iga gato hindiya iga gadato marka maxaa la yiraahdaa kuma Soomaali kaliya ma ahan laakiin waa product anaga aan ugu talagalnay anaga skinkeena iyo dadkeena wax tayo leh inaan u helno oo farmashiyaasha laga gato daawadayaal waxaan ku jirnaa ku saabsan waxyaalaha ku qurxiyo dumarka iyo weliba rag baa ku jira marka waa Fawsiyo Cali Salaad oo ka hadlaysa kamariga la yiraahdo natural skin care marka waxaan horaan soconaynaa marka ilaa hadda waxaanu ka hadlaynaa waa qaybtii lotionka caadiga ahayd iyo vitamins way ma ahan tihaarihi marka maxaa marka haddaad dumar tihiin hadda kaftan kale haddaad dumar tihiin tan haaraha la gelo taas waa wax caafimaadka u baahan laakiin niman Soomaali baa niman inay ah marka waxa la isku qurxiyo hadda aanu ma arko wadankii baa laga haystaa oo u baahan hadda waxa la rabay inaad hawlihiina kale iyo shaqooyinkiina kale iska qabsataan marka yani waa waqti waa xoog doofaar lagu cayrinaya baan u arkaaba inta nimankaas aan niman inay nahay uma baahnidinba inaad qurux iyo kariim iyo waxa laga hadlaba marka quruxda waa very important dadka in ay qurux isqurxiyaan dumarka isqurxiyaan ragga isqurxiyaan dhalinyarada soo korays inay isqurxiyaan waa muhiim dhalinyaradeenana waa inaan u horkacnaa wadada fiican oo wadadii mataqaanaa iscadaynta iyo wadadii laalaabka aan kasoo kaxaynaa saas unbuu wadankii tayo ku yeelan doonaa laakiin tayo ma yeelanayo wadankii haddii la dhaho qofta dumarka ayay isqurxinin diintaybu ku jirtaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahday naagta ninkeeda ha isku qurxiso marka sidaas darteeda qofki inuu isqurxiyo jirkiis quruxsado nadiifsado waa wax muhiim u ah jirka iyo maxaa la yiraahdaa caafimaadka bini'aadanka labadaba maya taas waa kaftankii maahan waa wax jira weeye qul man harrama ziinata allahi allati akhraja lilcibaadi marka waa wax jira masaajidda in la isku qurxiyo saa sheegaysa quruxdu waa wax ka mid ah laakiin waxaan sheegayaa nimanka Soomaalida in la ganaaxo weeye maxaa yeelay dumarkoodii bay dayaceen marka halkaasaa laga wadaa hadda waxaynu u gelaynaa marka tii kale oo aad lahayd maadadii aad lahayd haaraha iyo waxaas wax ka taraysaa marka balayada soo dhaweey ayadana oo noo sharax marka maadadanayta tan waxaa la yiraahdaa spot and tone waxay kaa caawinaysaa wixii sports aging kusoo baxo sidaa u ognaa qofka marka uu wax yar da'diisa wax yar ay kor u weynaato waxaa kusoo baxaya madmadow yaryar waxaa kusoo baxayo maxaa la yiraahdaa bara yaryar oo madmadow marka age spoda la yiraahdaa kuwaas ayaa loogu talagalay iyo wixii mataqaanaa qolof kor saaran oo haara ama waxyaalahaasayta ayaa loogu talagalay marka sida muuqata alaabadan maadooyinkan waxaad ku salaysay yani midabkeena iyo maqaarkeena iyo saasaa tiri soo maahan waxaad samayseen cilmi baaris adag tan oo kaleeta hadda maxaa la yiraahdaa oo haaraan dumarka loogu talagalay inay mataqaanaa haaraa iyo wax ka bi'iso sanadii bar ugu yaraan 2 sano ayaa researchkeeda la samaynayay oo la baarayay
hadda mid kale noo soo socoto oo ayadana baarid ku socoto ilaa mataqaanaa lasoo diyaariyana aan ka hadli karin marka waa wax inta lagu baaray oo research lagu sameeyo oo test lagu soo mariyey kabacdina ogolaashana loo siiyey inaan samayno marka midaan haaraha ayadana ma sida looshinka markii la rabo la marsan karaa mise waa in 3 jeer la marsado mise in wejiga la dhaqo in ayada marka noo sharax qaabka loo isticmaalayo tan waxay ku jirtaa koombadaas oo kaleetay ku jirtaa waxaa la sameeyaa sideedaba maalintii qofku asagay ku xiran tahay maalintii 2 jeer uu marsan karaa hadduu rabo maalintii 3 gabdhaha waxay ku xiran tahay qofka sida uu rabo jirkiisa inuu u qurxiyo marka hadduu rabo habeenii maalin uu marsanaya hadduu rabo subaxi keliya uu marsanaa wuu marsanaya sidii kareem caadi uu marsanaa wuu ku baxaa banaanka in qiyaasuu marsanaya jirkana uusan ka dhaquulaynin uuna ka badinaynin qiyaasta muhiima waa aragnay marar badan oo aad telefishinada Soomaalida aad tagtid oo si fiican u kala dhigtid marka workshops waa samaysaa intaad xaafadaha tagtid hadda magaalada aad joogto kale workshops badanaa sameynaa waxaan sameynaa workshops qolooyin ajnabi ah nala shaqeeya waxaan keenaa mataqaanaa productigan keenaa waxaan keenaa waxyaalihii wejiga lagu dhaqanaayay waa sameynaa marka qofkii xaafadiisa asaga diyaar u ah inuu workshop loo sameeyo within London diyaaran u nahay marka badanaa adduunka dadka kale way isgacan qabtaan oo wax walba tartiib bay ku bilaabeen oo waxaan hadda warbaahinta hadda arkisi waaweyn oo kale hoos baa laga bilaabay subscription baa la isu sameeyey marka ma hesheen adigu wax saas dad soo raadsada oo Soomaaliya oo aad u soo raadsada oo ugu talagalay isticmaal kaliya maahana inay idan gacan qabtaan oo intay gadan lahaayeen waxay maadooyinkaas kale yiri kuwan Soomaalidu ay soo wataan baan ka gadaynaa way jiraan Soomaali badan aad jirto especially dadka business ka sameeyo wayna soo wacaan quantity badan ay naga dalbadaan markaas ka bacdiyaan u geynaa ama ha noqoto maxaa la yiraahdaa ha noqoto within the UK ha ahaato ama sida Soomaaliya oo kaleeto Somaliland Hargeysa Muqdisho maxaa la yiraahdaa Nairobi Jarmalka ama Sweden meelahaasito way naga dalbadaan dukaamada waana u dirnaa marka arinta licensing see ku heshaa ma sahlan tahay mise ma cusboonaysaa sanad ma cusboonaysiinaysaa mise hal mar lagu siiyey mise may mar kasto productiga aad soo sameynaysid waa inaad license u heshid waa inay soo mariyaan meeshaas daraagiya cuntada yar soo mariyo haddaan waddan Yurub ka mariyo oo kale waa okay soo maahan qasama Ingiriiska inaan within Europe waad ka marin kartaa markaas ay European logad ku qoraysaa laakiin manufacturing UK haduu yahay waa inaad UK ka samaysid waxa ogaanaysaa maadooyinkanayto iyo waxyaalahan productyada dumarka laga beec mushtaro UK waa meesha ugu adag oo maxaa la yiraahdaa wax lagu sameeyo waa gartay hadda marka ilaa 3 products baan tusay 3 maadana tusay maxaa kaloo marka noo soo socdo noo haysa dhimal mustaqbalka chance ka lagu siinayaa marka waxa noo soo socdo mid day cream la yiraahdo oo maalintii la isticmaalo 2 nooc oo habeenkii la isticmaalo mid waxa jiro anti aging ka loogu talgalay oo dumarka waayeelka loogu talgalay mid kale waxa jiro maxaa la yiraahdaa waxyaalo fara badan ah jiraan may badan yihiin productiga ma yara waa company-ga uu weynaaday 5 sano la soo dhaafay cabaar maxaa la yiraahdaa aad ayaan u fitnay meelo badanna waa gaarsiinay sababtaasaaba maxaa la yiraahdaa aad nooga aragtay media-ka wax badan aad nooga aragtaa hadda sida magacan company-gaagan ku jira natural baan u jeedaa marka waxaad leedahay waxaan wax organic oo maadooyin caadi ah cuntada laga sameeyay iyo geedo caadi ah iyo wax badan oo chemical kuma jiraan baa leedahay chemicalka waxa ku jira chemicalka loogu talagalay waxa waay wixii lagu kaydinay maadada lagu kaydinaya ku jirto inta kale 98% waa organic marka dadku waa inay ogaadaan marka wax ka fiican in la isku daaweeyo waxyaalahaas organic ama leh marka labadaas kalena way noo soo socotaa marka TV-ga marka hadda aad ka hadlayso kale waxaad arkaysaa dumar badan
oo dhahaya waa ku liibaanay waa ku khayranay marka masaaxiibadaay oo ku camiraya mise waa dad oo dumar waxaan ay ka dhab tahay oo yani ka faa'iiday oo yani arkay waxtarka maadooyinkaagaas wallahi qofna ani maba dhihin maxaa la yiraahdaa hal isoo waco ma dhihin qofna mataqaanaa saaxiib aan leeyahayna maba jiraan dumarku ay ku yar yihiin saaxiibada aan leeyahay marka waa dad ayag iska soo wacay dad marsaday gabdho marsaday maxaa la yiraahdaa hadda waxaa la iisoo sheegay oo ku jirto maxaa la yiraahdaa snapchatka waxaa ku jirto faadimiina oo fanaanada ah oo faaniso productiga intay isticmaashay aniga umana dirsan mana aqaani maxaa la yiraahdaa gabdho badan oo igu qaldaayeen aniga ii maleeya inay faadimiina yihiin ahayna way isoo waceen xalay gabar baa igu qaladay faadimiina unbay gurtaa laakiin anigu ma ihi mana faaninin ayadaa productiga faanisay maxaa marsatay dabcan la yiraahday ayadaa marka dadka u sheegtay marka way jiraan dad saasoo kaleeto intay isticmaalaan youtube ka dhigo oo dhaho productigana isticmaal laakiin aniga qof aan u diray ma jirto ma waxaad leedahay hadda adoon waxba siin oo la xiriirin fanaanad caan ah baa uun iskeed u xayisiisay ayada iskeed u xayisiisay oo ku gelisay meelaha shaqo kuma lihi taas ilaahay aakhira waa liisoo istaajinaa marka waa horumar weyn ba adduunkan hadda taya waaye moogtay taya ahaana loo isticmaalay tayadeeday ka arkeen aniga waxaan arkay gabdho badan oo ducooyin iisoo diro brambur iisoo diro marka tayadaa keenayso marka haddaaba leedahay fanaanada caanka adduunka markii dadkan caanka ay wax dacayad u samaynayaan lacago badan baa lagu bixiyaa lacago badan bay qaataan marka waxaad arkaysaa weli dadkii Soomaaliyeed weli waaba nool yihiin hadiiba la isu camirayo adoon waxba u dirsan ay ku yeelayso ogow qofka markii uu product isticmaalo hadduu ka helo usually hadda waqtiga hadda la joogo snapchat jiro facebook jiro way sheegaan dadka way ku sheegayaan waxa ku leeyahay productigaas isticmaale ani taasa isaameysay ani way isku diraan ayaga isu sheeg looma baahna maxaa la yiraahdaa waxyaalo badan markii hore productiga aan bilaabaynay aad ayaa u cabsanaynay laakiin hadda cabsida way naga baaday waxaan ogaanay dadka Soomaalida dad ma garab istaagi kara inay yihiin ka soo qaad Afrika oo kala dib ugu noqo waxyaalahan timaha iyo la marsado waa waxyaalaha ugu lacag badan bay kamid yihiin waa gabdhihiyo timihii gubaya oo wixii sameynaya marka dumarka Soomaaliyeed waa iska dhiban yihiin marka heerkaas oo kale ma gaareen ay waxyaalahan la marsado ay aad u xiiseeyaan oo حتى wadamadan aan joogno meelahan timaha lagu sameeyay xataa wali waa cadaan iyo madow aad baa loo isticmaalaa marka Soomaalidu maadaama ay dad kaligood ilma iska haysta u badan yihiin iska ilooway baa qurxintii iyo ciyaalkooda la rafanaya oo dhiban marka hadda mis leedahay way soo gaarayaan heer ay may Soomaalida adduunku way la socdaan mataqaanaa haba ugu badnaadaan gabdhahan fanaaniinta gabdhaha aroosyada tago gabdhahaasay tabaha ugu badnaadaan ayaga aad timooda uga shaqeeyaan iyo gabdho badan oo guriga jooga oo aad mataqaanaa waxa looga hadlaaba tahayba maxaa timaha bixinaya maxaa timaha jijabinaya maxaa iska dhowraa marka qolol baaba hadda soo baxay aad looga maaragtay sheekeeyo timaha keliya looga sheekeeyo horta hadda waxaa muuqataa Soomaalidu timaha dhibsa weyn kuma qabaan ma lagu yiri dumarku ma ku weydiiyeen ma ku dhaheen dayaana rabnaa noo keen noo dalab meel aad raadid ay maxaa ku tiri marka ma waxa uga baqday ethical ahaan inaad yacnaha aysan macquul ahayn mise waa samayn weyday bal arrinta wax yar faafaahid ma samayn weyn waa samayn karaa oo mataqaanaa productiga waa wax la samayn karo but ethically ama maxaa la yiraahdaa dhaqan iyo diin ahaan midna wax qof jirkiisa haleynaya inaan sameeyo wax qurux badan oo ila noqon weysay waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed baa waxaa la arkay ganacsato dad iska caadi oo khiyaar u eg oo dadka u keenaya daawooyin dhacay oo ay meelo yani ka sameeyeen kaabsalo ay wax quran ku jiraan bur iyo wax lamida daawo dhacday marka adinka saas oo kale ma la dhihi karaa waxaad hoosta dad ka soo gelinaysaan alaab aan la isku haleyn karin oo dhacday ama waqtigeedii ama la tuuray oo ka soo bedeshaan bahalada wax saas oo kale ah aqib alaabadan maadaama ingiriiska lagu sameeyo laguna gado
farmashiyaasha lagu gadana waxaas way ka sarreeyaana isleeyahay adiga ma garanaayey laakiin wadankii wax badan kama ogi oo dhowr iyo soddon sano hadda waa kasoo maqanaya marka wadankii waa ka gooni laakiin inta UK markii la joogo way ka duwan tahay marka heer ma gaarteen Soomaaliya intii aad ka fikirtaan intii warshad yar iyo wax la qaado lagu sameeyo in aad balla tagtaan dhulkii ama wadamada xataa dariska sida Kenya oo kale oo aad dadku ay ka kaaftoomaan maadooyinkan kale ee kimikada u badan oo qaaligana ah oo aan la isku haleyn karin marka ma ku tali jirtaa inaad saas oo kale horta waxaan ku tali jirna waxa waaye wax wacyigelina marka hore wadankiina laga bilaabo horta dumarkii ayba yaryar oo hadda iskuulka dhigtay ay iska daayaan in la iscadeeyo markaas ka bacdi ayaa waxaa loo soo noqon karaa waxyaalo far badan oo wadankeena yaalo oo natural ah ayaa la isticmaali karaa looma baahna wax inta laga qaaday waxaa loo baahan wax halkaa lagu sameeyey oo gacantan lagu sameeyey oo dad khubra loo dhiibay ilmaha yarar wax soo baranaya loo dhiibay ay sameeyaana loo baahan yahay marka waa ku tali jirnaa insha Allah hadduu Ilaahay nala garab galo waa tahay marka ganacsigu sidiisa wuxuu ku fiican yahay shirkado iyo in la iskacan qabto Soomaalida arrinta aad ugu fiican waxyaalaha badan oo la haray taasa kamid ah markii shirkado la sameeyana badana aad baa la isugu qabsadaa adduunkana dee qof kaligiis far kaliya fool ma dhaqdo marka arrimahaas saa hadda sheegaysid waxaad moodaa inaad leedahay waa la xalinayaayo dee hal qof meel walba ma ootay karo marka shirkadahaas iyo waxaasna dad ama gudaha joogeen ama dibadaha joogeen kula soo xiriiray oo ku yiri waxaasaan rabnaa aan isla shaqaysano boqolkiiba intaas camal baan leenahay kambaniga aan wada dhisno adigu dhiirigelin maaliyadeed iyo mid fikradeed meel ma ka soo gaartay way jiraan dad far badan oo mataqaanaa haba joogaan wadankii ama Kenya waxa ku noolaadaan rabaa mataqaanaa productigan inay ka business ka sameeyaan ama businessyo kaleeto qasab ma aha kan kaliya oo u baahan in wadankii la geeyo oo la maalgeliyo marka maalgelinta waxay ku xiran tahay marba situationkay ku xiran tahay markaas la joogo marka ismalihi ani qofnaha ku maalgeliyo maalgelis hadda qofna ugama baahnin laakiin haddii loo baahdo in warshad la furo ama warshado la sameeyo oo wadankii yes waa loo baahan yahay maalgelin weyna loo baahan yahay loomana baahno qof 10 kun loo ordaayo ama 5 kun loo ordaayo looma baahna waxaa loo baahan yahay dad lacag leh oo millions maalgelin kara loo baahan yahay marka gabagabadii barnaamijkaynu joognaa waxaan aragnaa maalin walba dukaamada waxaan lagu gado ayadoo qolyahan arrimahan qaabilsan intay soo galaan ay leeyihiin maadadaas waa dhacday dukaamadii qaar xiraya marka maadaama aad sanado badan arrimahan kusoo jirtay dumarka Soomaalida qaar badan dad wax akhriya ma ahan marka maadooyinka hadda uga digaysid oo aad hebel taas magaca ku sheegayso oo leedahay waxaan waa dhaceen waa kuwii hore waa kuwa la mamnuucay waa kuwa waxa jira qaar xataa aan lana mamnuucin khatarna ah laakiin wali aan gaarin heer la yiraahdo shelfka laga dejiyo marka bal haddaad wax ka xasuustid mid ama laba ama maxaa kula talinaysaa dumarka Soomaaliyeed aad leedahay inay horta iska daayaan daawada yartaayo dhuuban oo Dernevaga iyo wax ay ku sheegaan oo mataqaanaa la isku cadeeyo oo dukaan kasta oo Soomaaliyana lagu gado mataqaanaa inay horta taas iska daayaan oo ayaga ay mushtarkooda u raadsadaan wax xalaal u ah sababtoo ah marka jir qof kaleeta aad dhibaataynaysid ama ha ku yiraahdo cambaaraan u isticmaala ama ha ku yiraahdo si kale u isticmaala adaa laga rabaa marka horeeto business ahaan waxaan inaa ka fikirtay inay xalaal yihiin marka aniga waxaan arkay dukaan Finsbury Park ku yaalo oo alaabta dhan laga dejiyay except my products kaligeeda looga tagay waxa ugu yaraan 10 kun oo alaaba oo baana laga dejiyay ayadana gabadhi warning la siiyo waxa lagu ganaaxayaa hadaa mar dan productidan ugu dhimaano gabadhi dukaanka way iska gaday laakiin waxaan ku sheegayaa dadkan in ay ayaga markay qofka dukaanka markuu soo galo hadii uusan let's say dukaankaana soo gashay sokor rabtaa inaad gadid hadii sokor oolin waa baxay sax the next one ay galay hadii sokortii aweysid waa baxay waxba kama qaban kartid hadaysan dukaamada keenin
oo dadka mushtarka ay keenin dadkan maba heli lahaynaan aaminsanahay daawadayaal taasi waxay ahayd Fawsiya Cali Salaad oo ka hadlaysa kambanigeeda Udalite Natural Skin Care marka qaybtii koowaad weeye habeenada soo socda iyo maalmaha soo socda ayaanu qaybaha kale gelaynaa talooyin fiican bay caawa dumarkii iyo dadkii isticmaalaya alaabteeda siisay marka aad baan uga mahadnaqaynaa inay naga aqbashay inay dadkeeda Soomaaliyeed la qaybsato maadooyinkaas ay samayso idinkana waxaan leenahay jasaakumullahu khayran bari iyo masaad dambe waxaa noo soo socda wareysiyo siyaasiyiin caan ah iyo dad laga yaqaan waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa marka sheergareeya waa gaar haye oo mar kale leh waa golo gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudban yihiin dawlad gunan nama siiso mucaaradna ma garab siino cid gooniyana uma shaqayno danta guud waa mid laakiin fikirka waa lagu kala duwanaan karaa goori ayaan gabagabada hadalkeenu waa sidii ku jis Allah u naxariistay u lahaa aan ku garownay gaar hayo geeyiga ilaali Fawsiya adiga daawadaasha waxaan leenahay jasaakumullahu khayran assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh